waxaan markaa u mahad celinaynaa xukuumadda ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo garatay inay dhaqdo boogtan inay daaweyso dhaawacan garatay maanta yaan u mahad celinaynaa si aan marnaba la qiyaasi karinna aan u soo dhawaynaynaa aad iyo aadna aan ugu faraxsannahay waxaan leenahay waxaad soo celiseen walaalayaal sharaftii ummadda soomaaliyeed hankii iyo isla weynidii ummadda soomaaliyeed damiirkii ummadda soomaaliyeed waxaad daaweyseen dhaawacyo dhiig baxahaya ummad baa maral u ahayd dunuubta laga galay shacbiga soomaaliyeed iyo jawrka lagu falay ee ay ku sameeyeen xukuumaddii ummadda soomaaliyeed ee loo igmaday inay ummadda soomaaliyeed karaamadeeda iyo qiyamkeeda iyo dadnimadeeda dhisto waxaa yaab lahaa 70 qof dad dhan oo dowladda Soomaaliya xilliga u talinayay jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya u talinayay inay isku raacaan inay qadiyadda ummadda Soomaaliyeed ku sheegaan argagixiso inay muwaadiniin Soomaaliyeed oo weligood dalkooda dambi ka gelin waqtigoodii oo dhan dalkan geliyay dhiigoodii u furay dadkoodii u baaba'ay loo dhiibay cadow ma ahayn oo kaliya wixii la dhiibay cabdikariin sheekh muuse kaliya ma uusan ahayn waxaa jiray kuwa kale oo meelo kale laga dhiibay xilliyo badan mar walbana kuwaas waan xusuusnaanaynaa iyo ciddii dhiibtayba waan xusuusnaanaynaa waxaan runtii rabaa inaan xuso xukuumadda xilligaas gashay jariimada intaa leeg ashqaas ku jirtay oo aan mar walba aan doonayna si gaar ah inaan u taabanno oo ummadda Soomaaliyeed ka mudan sharaf iyo xusid dheeraad mar walba sida Dictorayso Maryam Qaasin oo aan naqaano halgama taariikhda ummadda Soomaaliyeed beeldaha ka galay sidoo kale wasiir Juxo oo dadaal aad iyo aad u badan isaguna bixiyay dood badan bixiyay oo badan sameeyay ilaa markii dambe isagu shaqadiisii xilkii uu dalka u hayay uu ku waayay sidoo kale wasiir Omar oo isaguna dadaal badan geliyay in arintaas laga aamuso laga joogsado intii arintaas waxaa jiray kuwa kale oo ka maqnaa xilligaas yaa jiray dhamaantood intii ka xumayd iyo intii diidayba si gaar ah waan u naqaana waran u mahad celinaynaa mar kale iyo mar walba waxaan u mahad celinaynaa marka maxamed xuseen rooble oo leenahay ha jira magacaagu adiga xukuumaddaadu ummadda Soomaaliyeed waxaad ka daaweyseen dhaawac khatar ah waxaad dhaydeen quluubtoodii waxaan jeclahay inaan si gaar ah aan u taabto sida oo kale dadaalka ra'iisul wasaaraha aniga waan isaragnay hadda ka hor waan filayay in uu arintan ku maqan yahay laakiin caqabado badan iyo istaakulo badan oo loo dhigay yaa dib u dhac keenay inuu arintan mar hore golaha wasiirada soo hordhigo uu ku tala gashana laakiin istaakul iyo xanibyo badan oo loo dhigay ayaa lugta jiidayay maantana soo gaarsiiyay wuxuu qaatay asaga iyo golihiisa wasiiradu runtii go'aan geesinimo leh oo ku dhiiradeen inay ummadda Soomaaliyeed cambaartan iyo boogta ka daaweeyaan aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa waxaan jeclahay iyagana inaan xuso wasiiro dadaal dheeraad geliya arintan runtii oo muddo ka soo shaqeynayay sida wasiirka wasiiru dawlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha mudane cabdixakiin sheekh xasan ashkir wasiirka gaashaandhiga wasiirka qorsheynta jimaal wasiirka ii sheegeen amniga iyo wasiirro kale oo aan hadda magacyadooda wada xusi karin oo waqti geliyay in arintan mar uun la horkeeno golaha ummadda Soomaaliyeedna la daaweeyo damiirkooda iyo quluubtooda la muddo ka soo shaqeynayay maantana ku guuleystay cid kasta oo arintaas ka soo shaqeysay waan mahad celinaynaa iyo golaha wasiirada oo runtii maanta si buuxda 23 wasaaradood ay ugu codeeyeen wixii dhacay inuu ahaa fal dambiyeed iyo jariimo laga galay ummadda Soomaaliyeed muwaadin Soomaaliyeed iyo halgankii ummadda Soomaaliyeed iyo ururkii ONLF ee ummadda Soomaaliyeed oo dhan ahaa faynuus u baxaysa oo ku maqan qadiyada la dulmay ee dadkeedii baaba'ay xoreynteeda ku maqnaa intaas oo dhan runtii oo loo wada hiliyay aad iyo aad baad u mahadsantihiin wixii su'aala waan dhageysan doonaa haddii la yiraahdo waxaan idin rajaynayaa guul waxaan rajaynaynaa dadka Soomaaliyeed muddadaas 5 sano ah dunuub aad u waaweyn baa laga galay qof la dhiibay iyo waxa ka badan dunuubtii la galayay iyo argagixisada
oo iyaduna barbar socday xasuuq loo geysanay shacbiga Soomaaliyeed duulaan lagu qaadahayay dowlad goboleedyadii shacbiga iyo gudihiisa la isku diray waad ogtiin meel maanta inoo fayow ma jirto walaalayaal Soomaaliya wax inoo fayow maanta ma jiro ciidanka Soomaaliya ciidankeena marba meel lagu soo taabarayo ciidankeena mar walba leeyahay commandos magacyo loo bixinayo mid walba waxa lagu tijaabiyaa oo laga hawlgeliyaa goob ay leedahay dadka Soomaaliyeed oo loogu talagalay inuu weeraro yaa lagu burburiyaa markuu Jubbaland baa lagu duulay xilli abaar ay jirtay xilli dhibaatooyin kale ay jiray xilli dagaalo kale oo ururo ay jireen ayaa waxa lagu duulay Jubbaland oo dadkeedii la cunaqabateeyay oo deegaankeedii bandow lagu soo rogay oo cir iyo dhulba laga jaray yaa lagu duulay 15 urur baa la geliyay oo commandos ayaa la geliyay si loo burburiyo maamul mad Soomaaliyeed oo degan oo xasiloon oo duruufihii kale la daala dhacay umada haysta waxaad ogeydeen Baydhabo wixii ka dhacay baad ogeydeen Baydhabo wixii ka dhacay ayaad garanaysaan taqriiban 15 qof oo Soomaaliyeed iyo ciidamada Itoobiya taangiga idin wada muuqanaya wali ya cagta mariyay militariga Itoobiya cagta mariyay